ay ka gaareen godad ay sheegeen in ay halkaa ay ku leeyihiin dagaalyahanada ururka Xisbullah. Howlgalkan ayaa la sheegayaa in ay fuliyeen ciidamada gaarka oo ka tirsan militariga Israa'iil, kuwaas oo la sheegay in ay uga gol xaarayaan howlgal ballaaran oo dhulka ah oo ay sheegeen in ay ciidanka Israa'iil ay kula galayaan Xisbullah koonfurta Lubnaan. Aqalka Kremlin-ka ee dalkaasi Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay in wasaaradda difaaca ee dalkaasi Ruushka loo ogol yahay soo diyaarinta qiimeynta shuruucda isticmaalka hubka nukleerka ee Ruushka kadib isbedel uu ku sameeyay Putin oo ay ku jiraan in hadda Ruushku uu qiimeynayo haddii uu la kulmo weerar gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inuu adeegsan karo bombooyinka nukleerka. Afhayeen u hadlay dalkaasi Ruushka ayaa sheegay in isbedelka lagu sameeyay adeegsiga hubka nukleerka ay la xiriirto joogitaanka NATO ee sii kordhaysa gudaha dalka Ukraine iyo door